Ha ka murugoonin wixii tagay, waxa soo socda ayaa ka qurux badan. Hana ku mashquulin naftaada. Albaab soo xirmay ee ishaada waa inay qabataa albaabada kale ee furan. Haddaba maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa 10 arrimood haddii aad la timaadid murug iyo dhibaato walba aad uga bixi kartid. 1. Tuko salaada oo xiriir la samee Alle. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam haddii ay murug qabato wuxuu u istaagi jiray salaada, markaas ayuu dareemi jiray raaxo. Alle wuxuu leeyahay kaalmeysta sabarka iyo salaada. 2. Xuska Alle ayay qulubta ku xasilaan. Badi dikriga Allah si uu qalbigaaga u dego, nafsadaada ay u faraxdo. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii joogteeya istighfaarta wuxuu Alle uga yeelaa hami walba faraj, ciriiri walbana meel looga baxo. Wuxuu arsaaqaa meel uusan ka filaynin. Iyo ducadii Nabiga Yunus, laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu minadh-dhaalimiin. waa furaha farxadda ee Alle na siiyey. Ha iloobin adkaarta subaxii iyo galabkii. Ku celceli xasbunallah wa nicmal wakiil. 3. Waxaa qalbigaaga ku qaboojisaa aayadda Alle, naguma dhaco wax Alle noo qoray mooye. Markaas ayaad dareemaysaa waxa Alle kuu doortay inay ka wanaagsan yihiin waxa adiga aad dooratay. Iyo xadiiska Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxaa la yaab ah arrinka qofka muuminka ah arrimihiisa oo dhan waa khayr. Waxay gooni u tahay ruuxa muuminka oo keliya. Haddii uu la kulmo wax wanaagsan, wuu ku farxaa wuuna ku mahadnaqaa. Haddii ay dhibaato ku dhacdo, wuu ku sabraa waxayna u noqotaa khayr. 4. Alle dembi dhaaf weydiiso. Nin ayaa maalin u yimid Xasan al-Basri wuxuuna ka cabanayay roob nooma da'in maalmahan, habaar daran baana haysata. Wuxuu uga jawaabay Xasan al-Basri, Alle dembi dhaaf weydiista. Nin kale ayaa u yimid wuxuuna ku yidhi, waxaan ka cabanayaa faqri, waxaan ahay qof aan waxba haysan. Wuxuu uga jawaabay, Alle dembi dhaaf weydiiso. Kadib nin kale ayaa u yimid wuxuuna ku yidhi, xaaskayga dhowr sano ayaan wada joognaa, wax carruurana ma dhalin. Wuxuu uga jawaabay, Alle dembi dhaaf weydiiso. Dadkii meesha joogay ayaa weydiiyey, mar kasta oo qof cabasho kula yimaado waxaad siinaysaa hal waano oo ah in Alle dembi dhaaf weydiistaan oo keliya. Xasan al-Basri ayaa wuxuu ku yidhi, miyaadan maqlin hadalkii Alle oo Qur'aanka inoogu sheegay marka uu ka waramayay Nebi Nuux? Waxaan ku dhahay dembi dhaaf weydiista Rabbigiina, isaga ayaa dembi dhaaf badan. Wuxuu u diray samada roob aan kala go' lahayn. Wuxuu idin kordhinayaa xoolaha iyo carruur. Wuxuu idin yeelayaa jannooyin, beero waaweyn. Wuxuu idin yeelayaa webiyaal socda. Waxaadna xasuusataa aayadda Alle oo ahayd, Alle ma ciqaabo ilaa inta ay dembi dhaaf dalbanayaan. 5. Alle ka cabsi. Alle wuxuu Qur'aankiisa ku yidhi, ruuxii Alle ka cabsada wuxuu u furi faraj, wuxuuna ku irsaaqi meel uusan ka filaynin. Qofkii Alle tala saartana way ku filan tahay. 6. U sheeg naftaada waxyaabaha aad ka walwalsan tahay. Markii aad naftaada u sheegto oo aad sharaxdid dhibka ku haysta, aadna qortid, waxaad ogaan kartaa markaas tallaabooyinka ugu wanaagsan ee aad qaadi karto si aad u xallisid walwalka aad qabtay. 7. Raadi xalka oo ogow in dhibaato walba ay leedahay xal. Raadi xalka kuna dhaqaaq saameyntiisa. Sidoo kale isku day inaad la wadaagtid asxaabtaas. Waxay kuu suurto gelinaysaa inaad hesho xal badan oo kaa maqan. 8. Wax ka baro. Dadka qaarkood waxay la yaabaan ama isweydiiyaan sababta dhibaatada ugu soo noqnoqonaysa. Ma oga in imtixaanka iyo casharada la soo celceliyo ilaa qofka uu wax ka barto ama wax uu ka qaato. 9. U sheeg saaxiib. Haddii fikirkaaga bato, raadi saaxiib aad ku kalsoon tahay una sheeg dhibaatada ama dareenkaaga. Qofka oo dareenkiisa qarsada waxay u keeni kartaa cudurro badan. Isku day inaad ka hadashid dareemahaaga, laakiin saaxiibkaaga waa inuu ahaado saaxiib wanaagsan oo murugtaada murugtiisa ah kuna fahmaya. 10. Hagaaji fikirkaaga. Ka fikir waxyaabaha aad haysatid inta aadan ka fikirin waxyaabaha kaa maqan. Nafsadaada u sheeg inay jiraan boqolaal arrimood oo Alle aanan kaa qaadin. Hana ka fikirin oo keliya arrinta kaa maqan si aad u murugoonin. Dheh alxamdulillaah mar walbana soo xasuuso inay jiraan dad adiga kaa daran. Haddaba haddii aad 10kan arrimood aad ku dadaasho, hubaal waxa ah inaad ka fogaatay murugta iyo la deriskeeda. Comment in negative, share ka dhinacaga, noo sheergay.
haddaan soo heesay heeskayga tigisaar waxaan soo sheegay dhegataada u furo waad ogtahay